shacbiga togdheer aan la wadaagaynaa maanta munaasabadan oo ah in la dhagax dhigo si loo soo nooleeyo taariikhda Somaliland oo halkani taariikh weyn bay leedahay. taariikh taa ka sheekaynayo warasaabku oo xilligii dhibaatadu jirtay howlkii naga soo horjeeday wax lagu xukumay 42 qof oo odayaashii reer Burco ahaa oo dil lagu xukumay iyagoo waxba geysan. halkan inaga dambaysaana waa halkii laga dhawaaqay la soo noqoshada ama dib u soo noqoshada qarannimada Somaliland oo 34 sano inay sugaysay. sida uu sheegayo gudoomiyaha gobolku bariyaanu mucaaradka hay'adda awood badan ma jirin, laakiin bariyaanu nimi waashmaanka ay leeyma siiyo mushaharadiisa bariyaanu mucaaradka hayn ilaa imika waa bixinayeen. imika dhismihiina iyadoo muusiyaba taariikhda Somaliland tii Ingiriiska ka horeysay tii ka dambeysayba insha Allah waynu soo dhigi doonaa. sida la sheegayna waxa kale oo helin doona goob cilmiyeed ama library dadka dhalinyarada reer Burco iyo aqoonyaha kuwa ay ka faa'iidaan oo library qurux badan oo weyn oo taariikh iyo cilmiba isugu jira ayaynu halkan ka samayn doonaa. sida warasaabku sheegay waxay noqon doontaa goobtani goob loo soo dalxiiso oo taariikhda laga soo doonto oo qof kasta Somaliland yimaadaaba meeshuu doonaha ka soo galay oo hadda halkan ku dambeeyo oo si uu soo arko halkan iyo taariikhda taala. ilaahay ka baryayna inuu hawlaha inoo fududeeyo. mashruucan wuxuu noqon doonaa mashaariicda ay hirgelinayso xukuumadda wada jiriyo waxqabad ee gobolka Togdheer.